السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت كرامة شرفت أي احترام كمدنات بانيني سلاني وقت وناكسني نور الغروح فدن باني دي رجينينا كسو دوادا كنال كينا عافيمات كي دريال كعافيمات مقالك وحينو كغا هاللينا أما ينسيكو ونو كغا هاللي دونا قدار aad ugu wanaagsan dhinaca ragga inkastoo aynu ogsoonahay geyga Soomaaliyeed iyo wadankeena oo laga yaabo inaanu aad qani ugu ahayn haddana waa mid muhiim ah inaynu isku tilmaamno guud ahaan gaar ahaan ragga inaynu aad ugu tilmaamno qudaartan aadka u fiican dhakhaatiirta dhinaca jinsiyadda iyo dhinaca inta badan family-ga iyo dhinaca nafaqaynta iyo dhinaca in markaas kobcinta si loo helo taran iyo tayo fiican iyo in markaa dhinaca hormoonada ka qayb qaata dhinaca gogasha loo kobciyo ayaa waxa ay runtii heer sare ka gelinayaan qudaarta lagu magacaabo rumaanka waa qudaartan inoo muuqata inay ragga aad ugu fiican tahay qudaartani waxay u wanaagsan tahay ragga saddex group oo ka tirsan ragga koobaad waa ragga laga jaray qanjidh ku dul yaalankaadi haysta oo leeyahay prostate oo inta badan kansar baa ku dhaca kadibna waa u bararaa waana laga jaraa raggaasu inta badan qaarkood ma dhalaan qaar kale waxa ku yaraata awoodda iyo tamartii iyo ninimadii iyo raganimadii baa yaraata qaar kale nafaqadii ayaa markaas nafaqadii lagu talagalay ee inuu markaas ubad ku sameeyo ayaa meesha ka baxda dhakhaatiirtu waxay aad ugu taliyaan inuu qudaartan isticmaalo waxa ay leeyihiin vitamins ka caawinaya barnaamijkaasi iyo arrintaas sidoo kale waxa ay u qoraan ragga ama walwalka iyo xanuunada dhinaca depression-ka ah ee maskaxdu ay ku dhaceen ee markaana sidoo kale howlgab noqday ama guursan waayay ama markaa arrintii dhinaca ninimadu ay hoos uga dhacday arrinta kale ee iyadana soo hoos raacdaa waa ragga waaweyn ee marka ay waaweynaadaan iyaguna daayadda lixdameeyaha ku dhowaada ama markaa taga ee iyaguna markaas aanay markaas isku dayo inay markaa ay arrimahaasu ay ka yaraadaan intaas ayay u qoraan sababta ay ugu qorayaanna waa waxyaabahan aynu tilmaami doono waxa uu qani ku yahay faytamiinada ka qayb qaadanaya kobcinta iyo saruqaadka dareeraha waraabiya maskaxda ee hormoonka loo yaqaan ee jidhka ku sii daaya inuu markaa ninku awoodaysto oo ninimadiisu ay saru soo kacdo qudaartani waxa ay leedahay vitamins iyo minerals aad u fiican waxa kale oo qofka ay u abuuraan inay tayadiisa caafimaad wanaagsanaato awoodiisuna ay fiicnaato ninka isla markaa uu ahaado qof maskax ahaan aad u firfircoon inta badan dheecaanada rusheeya maskaxda ee ka qayb qaata dareen wadayaasha jidhkeena ayuu kobciyaa waa marka qofku uu qaabka dhakhaatiirtu ay kula taliyaan uu qaato ee aanu hilmaamin ama wadadu aanay ka qalloocanin ayuu arrintan ama qudaartan si ballaaran uga faa'iideysanaya marka koobaad waa dabiici oo waa organic marka labaadna waxa uu qani ku yahay faytamiino aad u ballaaran oo u fiican ninka waxa faytamiinada ka mid ah siday u badan yihiin faytamiinka waxa uu qani ku yahay leeyahay vitamin C oo ka qayb qaata samaysanka nudayaasha kobcinta dhiigga noocyadooda kala duwan kacad ka guduudan kacas inuu ka qayb qaato waxay arrintaasi keenaysaa inuu markaas u soo kobco ninka markaas in dhiigagii kala duwanaa ee jidhkiisu ay buuxsamaan awoodiisu ay korodho gaar ahaan kuwa la yidhaahdo dhiigga noociisa cadcad ama unugyada dhiigga cadcad ayuu aad u kobciyaa kuwaasoo ka qayb qaata difaaca iyo awoodda iyo markaa dhinaca jinsiga iyo taranka ibni aadanka ayay qayb weyn ka qaadataa arrintani waa mid ay dhakhaatiirtu kaga tabategayaan sidoo kale inuu fiican yahay digestive-ka
arthritis-ka, respiratory disease-ka, xanuunada intaa ku dhaca, kala goysyada, xanuunada hawo-mareenka ku dhaca, xanuunada inta badan dhinaca dheefshiidka iyo urkujirka ku dhaca ayuu u fiican yahay qudaarta la yidhaahdo rumaanku. rumaanku waa qudaar inta badan geyga Soomaalida laga yaabo inaanay meelaha qaar aanay ku badnayn. midhahaasuu bixiyaa, qaabka loo isticmaalayaa waa la jarayaa, kadib midhihiisa ayaa la qaadanaya. waxa uu aad ugu fiican yahay qofku inuu habeenkii midhaha meel uu ku shubto aad u nadiifa, ama koob ama meel quraarada wacan ku shubto oo nadiifa, biyo caadiya ku radiyo, subaxa marka uu soo kaco dabeetana biyihii la radiyey ee midhaha rumaanka ka samaysnaa uu cabo. waa marka loo baahan yahay ninku qaabka dhakhaatiirtu wadiiqada iyo procedure-ka ay marinayaan kaa weeye. waana mid aynu kula talinayno bulshadeena aynu aadka u jecelnahay, gaar ahaan ragga arrintan inay ogaadaan, gaar ahaan guruubada aynu soo tilmaamnay, dadka xanuunka kansarka ku dhacay qanjirka kaadihaysta dusheeda laga jaray, ragga kale ee iyaguna markaas tamar darri iyo tabcaan badani uu ku yimi, ama warwar ha ahaato, ama xanuun dhinaca maskaxda ha ahaato, ama arrin markaa noloshaba ha iska ahaato, ama nafaqa darraba ha jirto ay ku timi. waa mid muhiima. waxa kaloo ay muhiim u tahay inay qaataan oo ay aad u isticmaalaan ragga iyaguna waa weynaaday. qofku markaa haddii uu doonayo inuu guur iyo guri iyo reer samaysto oo markaa ninku arrimaha iyo barnaamijka galo uu qaadan karaa. qudaartani waa qudaar very reliable oo very useful oo very profitable ama markaa vitamino iyo borotiino iyo markaa macdano iyo minerals aad u ballaaran ay ku jiraan. aynu aad ugu adkaynayno bulshadeena inay aad uga faa'iideystaan. dadka helaya xataa kuwa aan helaynin inay isku taqallujiyaan si ay ku helayaan guruubada aynu soo sheegnay. guud ahaan dadkana waa wada faa'iido maadaama uu ku jiro faytamiinka la yiraahdo vitamin C. intaas ayaynu ku soo ururinaynaa. fadlan la sii wadaaga oo sii share gareeya bulshada kale aynu jecelnahay kanaalkeenan iyaguna inay ku soo biiraan. waxaananu mar labaad idin rajaynaynaa nolol aad u qurux badan, caafimaad taama iyo mustaqbal ifaya inaad ku noolaataan. wixii aad su'aalo qabtaan noo soo sheega waa idinka soo jawaabi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.